السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمو idinle kusoo dhawaada YouTube channel-kayga Bake with Asumi. Channel-ka ku cusub tahay oo maanta tahay maalintii ugu horreysay soo booqatay subscribe ha ka iloobin haddii aad ka heshay video-ga like iyo share isku raaci lacag kuguma joogto adigana waxbaad ka faa'iideysanaysaa anigana dhiirigelin bay tahay maanta insha Allah waxaan idin la wadaagayaa bariiskaas waa surbiyaan oo bariiska casuumadaha la karsado iyo maalmaha special-kaas ciidaha marka maanta waxaan jeclaystay inaan bariiska idin la wadaago runtii in badan maan soo gelin waxba hadda malaha 3 week ka hor baa igu dambeysay anaga ingiriiska dadka jooga way og yihiin lockdown baa lagu jiraa ciyaalkii guriga ka dhigtaan imka iskuulkii marka hawshu ma fududa iyada saabiisi u tahay hadana idinkana waan jeclayn wax idin la wadaagoon wax idin soo geliyo marka maanta bariiskan in badan la iga codsanayay ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan soo dhawaada waxaan ka bilaabayaa 3 midho basala ayaan jarjaranayaa basasha diirkan ka dhilaya markaan diirka ka dhilo si yar oo dhaadheer baan u jarjarayaa marka insha Allah horta basashan jarjaraya waxaan sameynayaa koob barkii saliid soo qaatay halkan ku shubtay saliid way kulaatay basasha waan soo jarjartay saliidii waan ku darsanayaa kulay marka basasha waxaan sugay intay casaanayso basasha waa inay si fiican wada casaatay ay ka noqoto dahabi inta basasha ii shilmaysa basasha ii casaanaysa because basasha waxaan rabaa inay xoog u casaato waxaan sii diyaarsanayaa alaabtii kale ku darsanayay khudrad waxaan ku darayaa barando iyo basal iyo toon halkan waxa yaala 8 xabo toona waan dhilayaa waxaan ku shumanayaa khalaadka waa ridqaya toonta barandada iyo toonta iyo basashaasaan ku karinayaa hilib halkan hilib baa yaala hilibku waa hilib ari hilibka jacashahay waan gogooyay waan meeday marka intaasaan ku darsanaya halkan xawaashidii dhammaan ku soo diyaarsaday halkan huruud bay igu jirtaa waa mulqaacad yar oo huruuda mulqaacad weyn oo khamuuna mulqaacad weyn oo ah vegetable seasoning ka maaragtay maraq digaag oo kale laakiin khudrada ah halkaas sinjibiil yar oo 10 mulqaacad yar bay taala mulqaacad yar oo kaariya yaala in yar oo qorfa shiidana milix mulqaacad yar halkaana waxay taala paprika markaas xawaashka saas baad u isticmaali kartaa hadii kalena kabaryaaniga ayaad ku darsan kartaa laakiin maanta aniga isku darsaday intaas basbaas badan iyo waxaas marabo intaas xagaas baan dhiganaynaa halkan mashiinka toontan dhilaya toonta yogor koob yogor aan u baahnahay marka intaas mashiinkan ku daraya waan isku ridqayaa basashan ka casaato half basashan ku darsanaya marka hore waxaan si sameysanayaa alaabtan ku darsan lahayn basasha iyo casaanayso basashii wataas way casaatay dawaan saas u casaata la rabaa saas marka waxaan sameynaa waan ka wada guraya hadda blade waan soo qaadanayaa waan ka guraya marka labaan u kala qaybinaya qaybna waan shiidayaa qaybna waxaan ku daraya bariiskan hadhow dusha kaga daraya basasha waan ka wada gurayaa waxba kaga ma tagayo meesha maran ban hilibka ku soo daraya oo in yar oo saliid ku hadhay saliid kale kuma darsanaysid just saliidaas un baad hilibkana ku shiilaysaa saliid dambe kuma soo darsanaysid basasha markaad saa uga dhamaysid waxaad soo qaadanaysaa hilibkii baad ku daraysaa qaadanayaa jaagan wax lagu ridqado waxaan ku darsanayaa toontii 8 xabadood toona halkan yogor baa yaala adigu koob yogora baad ku darsanaysaa basasha halkan yadnay taala shiilnayd basasha waxaan sameeynaa markan saddex loo qaybiyo laba qaybood khalaadkan ku daray waan ridqayaa
in yaroon hadhow dusha decoration waa kaga dhigo baan kala hadhayaa marka inta badanka waan ridqayaa de alaabtii aan isku darsanayna waan ku daraynaa waan isku ridqaynaa intaasaan isku ridqayaa mashiinkan isku gelinayaa de tan waxaan ku darayaa intan iyo barandhadan markuu wada darayaa si waan soo ridqay de xawaashka yar waxa isku noqotay halista basashii toontii wixii oo dhan way isku wada ridqameen de waxaan ku daraynaa waxaan ku darayaa barandhadii iyo xawaashkii waxaan sameynaya in yaro biyaan kusoo yaro dhaqdhaqanayaa in yaro biyaan kusoo dhaqdhaqay because xawaashku uu adag yahay markaa hoos buu wada fadhiistay so biyahaas yar baad kusoo dhaqdhaqaysaa intaa biyaan markaad ku dartid daboolkaad saarsaa 30 minutes daboolkaad u geejinaysaa dee 30 minutes ka bacdi baynu soo noqonaynaa markaan waxaynu karsanaynaa bariiskii caddaa bariiskii waan sii radsaday waan idin tusi doonaa surbiyaan maad maqli jirteen surbiyaan maanta surbiyaan baynu karinaynaa magacaa igu wareegay baryahan magacaan garan lahaa laakiin tii hadda igu soo dhacay waa surbiyaan bariis surbiyaan dad maqli jirtay furkaad u jiidaysaa dabka xoog uguma naaqosi dab dhexdhexaada allahumma salli ala sayyidina maxamed number 4 baan u geeyay biyaha hilibka ka soo baxa iyo khudradii wixii baa isku bislaan sawan soo noqon doona bariiskii halkan aan ku diyaarsaday 3 koob basmati waan meeday dan biyo diirimaadaan ku shubay iyo mulqaacad milixa marka waxa ka caawinaysa bariisku inuu dheeraado waxaan rajaynayaa inaad arkaysaan marka biyaha lagu radiyo bariisku dheeraada milixduna waxay ka caawinaysaa hadhow bariisku markuu bislaado inaanu ka jajabin uu bariisku isagoo xabadiisii sidiisii tahay ku bislaato markaas baan sameeyay waxaan sameynaa markay soo dhowdahay suugadii bariiska baan karinaya bakas maraba in xoog u karo mar qura markuu soo karo waan ka qaadayaa waan isku soo noqon doonaa insha Allah hadda waxaan sameynayaa bariiskii biyihii baan usoo kulaystay biyo bayla qatalkan kusoo karkariyay biyahaas ku darsanaysaa biyuhu waa inay bariiska soo dul maraan hadhow in ka miirana hadday batan dhibaato ma laha halkan waxaa ii yaala 2 mulqacdood oo saliid aan ku darayaa si uu bariisku igu kala furfurmoon iskaga kay dhagdhagin halkan waxaa ii yaala xawaashkii shaaxa qorofal caleentaas halkan waxay ku jira filfil hayl dagoole adigu xawaashkii shaax oo dhan intaasna waan ku darsanayaa bariiskii aan radsaday wakaas biyihii baan kasoo miiray waxaan sugay intuu 2 jeer uu soo karayo ma rabo inuu dabka sii saarnaado wax badan marka waxaan sameynayaa dawka bariiskiisa daboolkiisa iska saarsaa 2 jeer uu soo karano waad ka baqtinaysaa bariiskii waan ka qaaday dabka waan ka soo miiray bariiska waan diishaagay mar quraata markuu soo karin baad sugaysaa marka dad iska yara adag yahay because waynu huurinaynaa marka halkaas ku bislaanaya bariisku halka haynoo yara yaalo disti baan soo qaadanaya distidan bariiska ku karsaday suugadii way bislaatay half suugadan ku darsanay waxaan sameynayaa half baan ku darsanayaa suugada hoosta half baan marinayaa
haafna dhexdan kaga darayaa tistuusu aan bariiska kaaga gubin dee waa inaad horta suugo laba unbad u kala qaybinaysaa qaybna hoosta inta ku soo hadhana dhexdaad kaga shubaysaa insha Allah inta markan hoosta saa u shubo waxaan soo qaadanayaa bariiskii caddaa ee soo karsatay ee ka soo miirtay macal xawaashkiisa waad isku daraysaa marka la reebaysid inta hilibkaad ku qarinaysaa iyo khudradii tan suugada inta ku hadhayna hal marba dhexda kaga shubaysaa masha Allah udgoonkiisa de waxaan ku wadi bariiskii hooyaday karin jirtay baayo waayo ya ayu uraya hooyaday waa chef ya taynan waa hooyaday hal anigu hooyaday baan ka keenay hadaba idinka sheekay story-gayga my mom cuntada karso qof ma kariyo kanimka kii hooyaday ma gaariyaba sibu urteed sibu igu yara soo maaragtay igu yara ur ee kaaday marka bariiska soo shubtid intii cadaydna aad ku qarisid oo darkaysan waxaan sameynayaa waxaan ku wada qarqarinayaa meelahaas yara banaan halka waxa yaala saafraan kalarka orange-ka maaragtay in yar waxaan ku daray khala amba lindanaan haddii kalena saafraanka caadiga ah maaragtay dry-ga abad in yar biyo ku daraysaa markaad bilowdid bariiska waad radinaysaa kaasa ka fiican maanta kaasi mu oolin halka waxa yaala in yar sabiiba dushaad kaga daadinaysaa hadhowda decoration yar buu siinayaa basashana intii aynu kala hadhnay basashii casayd baan dusha kaga darsanaynaa de bariiska saas ku dhan yahay aluminum-kan ku xidhayaa dabka qonaa qusan saarayaa waxaan saarayaa 30 minutes ka bacdi waan ka qaadayaa waa diyaar bariiskii hadda ovenkan waxaan saarayaa dabka aluminum balafka kaga xidhayaa bariiskii wakaas dabkan saarayaa waxaan ku sameynayaa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad aluminum baan afka kaga xidhayaa aluminum ta markaan afka kaga xidho 30 mirir baan dabka yar saarayaa marka 30 mirir ka bacdi insha Allah markaan dabka ka qaado baan idin tusi doonaa dabkii waan u shiday tube baan u geeyay aluminum ta si fiican baan ku xidhay dhinac kasta waan kaga xidhid si aan naqas uga soo bixin because waa inuu huuro waxaan sameeyay 30 minutes ka bacdi insha Allah dhuxul baan dabka saaranayaa dhuxushaas markay casaato waxaan sameynayaa waxaan bariiskan dhex dhigayaa dhuxusha in yaroo bahalan ku daray saliid saytuun marka hadhow qiiq yar buu bariiska u dhadhamaya waan idin tusi doonaa saan u sameynaya half an hour ka bacdi dabkaynu ka qaadaynaa half an hour buu soo laacday masha Allah ya دوكا ما هذا البوكرية ما هذا البوكرية بس هو بوكرية تساس وبسلاد تساس يا ما شاء الله اللهم بارك صربيان bariiskas ayaan idin hayaa bariiskas oo kala furfurmay hilibkiisii adduunkiisii saas ula socdo waa bariiskii casuumadaha la karsan jiray ma garan hoosta ma gubanayo kor iyo hoosaas iskugu ekaanaya distida waxaan idin tusi doonaa ilaa hoosteeda bariiskii waa kaas masha Allah Allahumma baarik bake with asumi ciyaar ma galayso bariiskaasna maanta waa iga mid bariiska inta sare de color kale iyo sabiibkii waxa bool yaro gooniyad ku ridanaysaa hadhow markaad gurtid baad dusha kaga daraysaa sida uu decoration ugu noqdo ya si aad ugu decorate garaysid oo de intii orange ka ahayd iyo basashii aad shiishay iyo wixii hoosta uu soo baro bariiska wakaas saas ku dhan yahay waad aragtaan maanta waa bariiskii casuumadaha la karsanayay Sorbiyaan de bariiskii saas uu kala furfurmay saas uu bislaaday ya halila soo tijaabiye bariiskii ma sha Allah
barandadu mana burburayso haddana way bislaanaysaa saas ugu dhex bislaanaysaa bariiskii hadhow markaad kasoo gurtid bariiskii oo barandadii dhinac kaga jirto sabiibkii wax kasta ay sidaa soo baxaya maasha allah marka ila soo tijaabiya insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسمو يدله كسو دواد يوتيوب channel كيغا Bake with Asumi channel كادات كعصوب تاهاي او تهامركي غورتا سو بوخاتي فضلا subscribe and like share إن شاء الله ما توحن إذن لو داقيا طبقة هرتينا يالا وصدح و 3 in 1 today waxaan sameeyay bariis khudaar iyo chicken amba digaag ما شاء الله ده عنتو لو فريرستي يا سو دوادا سو فض أنا ayaan u baahanahay halkan waxa yaala digaagad digaagadu way isku dhan tahay just dhabarku ma ka kala dilaaciyay markaas halkan way isku dhan tahay waxaan sameeyay wan yar meeray hadda waxaan ku darsanayaa liin dhanaanta قاعد خلا لو مقعدات السليدة أوليف أويل أم سليدة استعماشيد هالكو حقيقة له ساعتر كاسنا يربان كقدرية هالكو نحو حقيقة له حواشيدي كلان كودر سنيي ملقاعد ضير هافكيت أو خمونة يرو كاريا بابريكا هرود فلفل iyo maraq digaag intaasan ku darayaa hadaan maraq digaag rabin milix baad ku darsan kartaa marka xawaashida intaasan ku darayaa mar quraatan ku wada daadinayaa teetana talaagadan gelinayaa adigu waa inay 2 saacadood ugu yaraan kugu jirto haday ka badan kugu jirtana ka si fiican hadii kalena waa inay 2 saacadood kugu jirto xawaashka si fiican baad wada marinaysaa ilaa inta dhinac walba uu ka wada gaadhay xawaashku markaad saas u wada marisid markaad xawaashka saas u wada marisid dhinac walba aad u marisid wax taqaan sabax afkaad kaga xidhisaa talaagadaad gelinaysaa talaagada intay noogu jirto khudradii baan diyaarsanaynaa aynu ku darsanaynay marka khudradii baan diyaarsanayaa khudradda waxaan ku darayaa barbarooni waa kuusatana خضارته دمر ku darsanayna khudaarta hoosteenu marinayna tamaandho kaarkana waan ku darayaa barandadana si waaweyn ma u jarjarayaa adigu 4 midho ma kala jarayaa basbas waa basaaska kulul marka ma raba inay cuntada iga kulaato just waxaan rabaa inuu udgoonkiisa halkan waxa yaala 3 midho toonta waan jarjarayaa khudradan ku daadinaya halkan waxa yaala in yar xawaasha mulqaacad yar oo babrika in yar maachia iyo mulqaacad marka afar loo qaybiyo qayb yar oo filfila intaasan ku darsanayaa halkan waxa ay ku jira mulqaacad saliidana aan ku darsanayaa khudaarta si fiican baan isku wada gaarsiinaya xawaashka dan waa ready in ovenka la geliyo chickenki baan dusha kaga soo daraynaa
chickenkii si fiican buu xawaashkii ku dhex galay 2 saacadood buu ofinkii ku jeeray wakaas hadda waqtigii la dubi lahaa ofinkiinu galinayna halkaasaan saas u dul saaraya waxaan rabaa khudradda muudka ka baxa chickenka inuu ii galo insha Allah de sidaas baan sameeynaya xawaashkiigii yaraa ka hadhayna dushaad kaga darsanaysaa ofinka gelinaysaa ofinka 45 mirir baad u geynaysaa marka ofinkaagu intuu yahay halka ugu sareysa aad u geynaysaa kayga waa 120 baan u geynayaa adigu 120 maaha 200 marka chickenkaaga saa u diyaarsatid aad halka dul dhigatid waxaan dusha kaga xidhayaa aluminiumta intaan kaga xidhin warqadan aan ka sii hoosaysiinayaa aluminiumta waad aragteen way ku dhagtaa laakiin warqadan ayar bay ka dul qaadi kartaa marka intaan aluminiumta ku xidhin taasaan saarayaa deetana aluminiumta ku xidhaya si fiican waa inaad u xidhid si aan meel yarna hawo uga galin min hawo uga soo bixin haddaad aluminium weyn haysatidna midaad ku xidhi kartaa haddii kale aniga taydana way yar tahay chickenka waxaan gelinayaa ofinkan sii kululaystay ofinka 200 baan geeyay wuxuu igu jirayaa 30 minutes 30 minutes ka bacdi waxaan sameynayaa waxaan ka qaadayaa aluminiumtii iyo baking paperkii aan dul dhigtay waxaan rabaa inuu 30 minutes ka kale ii harsan dushu si fiican iga casaato marka waan ka saarayaa khudraduna saas ku bislaanaysaa muudkii chicken ka soo baxay iyo muudkii khudrad ka soo baxay baa bislaynaya biyo uma baahna in lagu daro iyada sida iskaga bislaanaysa ma sha Allah chicken macaanka diyaartid baa kaaga soo baxay inta uu chickenku ofinka igu jiro waxaan sameysanayaa bariis yar oo iska simple aan sameynayaa xabad basalaan jarjartay distidan ku soo ritay waxaan ku darsanayaa koobka marka 3 qaybood loo qaybiyo qayb saliida marka basasha waan casaynay waxa rabaa in si fiican igu casaato basasha marka ay casaato basasha waa inay xoog u casaato ay brown noqoto saas u casaato waxaan ku darayaa biyo kulul oo katalka ku kariyay iyo yaro xawaashi badan kuma darayo biyaha kulul baan ku darayaa biyaha waa inay bariiska soo dul maraan hadhow markaad bariiska ku dartid halkan waxa yaala xawaashidan ku darsanayay xabad qachiyaan ku darayaa maan kala jeexin because kuleyl badan ma rabo caleentas bariiska lagu darso bay leafkaas ku darayaa cinnamon yaro filfila hayl qorfe dhagayare ma la dhahdaa yaro huruuda iyo yaro khamuuna marka intaas isku karkarto halkan waxa yaala bariiska waan sii radiyay fiidiyoyadeeda hore wad arki kartaan bariiska waan radiyaa markaan karinayo markaan biyo diiran baan ku radiyaa iyo mulqaacad milxa biyaha kulul waxay ka caawinayaan bariisku inuu ku dhaadheerado wad aragtaa bariisku dhaadheeraanaya milixduna bariisku inaan hadhow ka jajabin markaad karisid oo bariis xabadii isku dhameystiran in ku soo baxdo ay ka caawinaysaa marka bariiska maanta bariiska focuskeenu mu hayn marka bariiskaas inuu karinaynaa bariis yar iska easy chickenkii iyo khudradiina ofinkii ugu jirtaa waxaad sameynaysaa dabka ood ku dalacaysaa bariiska haddaad rabtid inuu ku dhaadheeraado oo ka jajabin marka hore marka bariiska la karinayo waa lagu dalacaa dabka xoog baad ugu dalacaysaa xagga ugu dambeysad geynaysaa markaad geysid
marka bariisku uu biyuhu aad aragtid inuu gursaday ayaad u naaqusaysaa laakiin marka hore intuu biyuhu ku jiraan waa inuu xoog u soo karkaro waxaan ku darsanayaa mulqaacad maaji waa mulqaacad weyn maajiga khudratan isticmaalaa marka mulqaacad baan ku darayaa marka waad isku daboolaysaa intuu ka soo karayo uu biyaha ka gursanayo bariiska isagoon wali bislaanin oo biyaha gursan haddaad ka naaqustid wuu isku dhagaade bariis yaroo saas iskugu dhagsan buu noqon laakiin haddaad rabtid bariis qurux badan oo furfuran inuu kuu noqdo bariiska biyaha markaad ku shubtid waa la isku daboolaa dabka waa loo dalacaa ilaa intuu ka bislaanayo markuu bislaado baa laga naaqusaa marka uumigaa yarna inta yar ugu dambaysa ku bislaanaya marka saasuu bariiska furfurka aad aragteen saasa loo kariyaa ما شاء الله chickenkii waa ready khudraddiina dee maasha allah saasay u bislaatay biyo inaad ku dartid uma baahnid chickenka iyo khudradda biyaha ka soo baxay khudradda ku bislaanaysaa chickenkaagii saasuu diyaar kugu yahay dee maasha allah bariiskiina waa diyaar nabiga lagu saliyo calayhi salaatu wassalaam
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمايد الله كسر دوادة يوتيوب channel كيجا Bake with Asumi. channel كاتدك عصبتها هاي مركي قرص صوب خاطي فضلا سبسكرايب. إن شاء الله ما أنتوا حندلوا ذاك يا giant cookie يا وحبت كوكي وحين تلاقي كوكي كين تلاقي بنمان تسميننا بيرستياشي حفلتها يحسب السمستة مركا ما توينا كيك عبد الله بيرستيجي 4 years بمان تنقضي مركا عبد الله نص سميني إذا كانوا حنشعل هذا نديلو ذا قص نص سميني سو دوادا إن شاء الله حرجينا نتكهلي دونتان فيديو قدرت كهالشيء لايك صار and وكاس. This is the best cookie ever with ice cream on top. So nice. Look at it. It's really nice. You would love it. alaabtii cookiga ka sameeyay halkan aan ku soo diyaarsaday waa easy de markaad wax xaga wada diyaarsatid meeshan soo dirigatid soo waxaan sameeyaa halkan waxa yaala 200 gram oo ah milk chocolate waan jarjaray hadii kale waxaad isticmaali kartaa chocolate chip halkan waxa igu jira 150 gram oo daqiiqa waa plain flour daqiiqana waxba ku jirin halkan waxa yaala 115 gram oo ah butter waa bila milix halkan waxa yaala 130 gram oo light brown sugar halkan waxa igu jira mulqaacad barkeed oo baking powder iyo mulqaacad barka afar loo qaybiyo qayb ah baking soda waan isku soo darsaday mulqaacad barkeed oo milix halkan waxa ay taalaa mulqaacad vanilla sea salt ba halkan ay taalaa milixdaas intaasan ka sameeynaya wax badan uma baahnid gacantan ku sameeynaa mashiin kuma sameynayo marka mulqaacad iyo waxaad u baahantahay jabacaad. Okay marka hore waxaan sameeynaa butterka waan dhalaalinayaa waxaan isticmaalayaa tinkan aan ku dubaya waa 8 inch marka dabkana isagan ku saaraya waxaan rabaa inaan dhalaaliyo waxaan dhalaalinayaa ilaa intuu brown ka noqonayo dabkan saaraya dab aan xoog u dalaacnayn marka waan dhalaalinayaa marka dhalaaliyo waan intusi doonaa insha Allah markaasaan ku darsanayaa sonkorta iyo beedka xabad beedan u baahanahay waan soo dhalaaliyay butterkii si fiican u dhalaaliyay ilaa intuu saas brown uga noqonayay waa butterkii un baa saas brown u noqday waxaan sameynayaa boolka ma ku shubanayaa tinkan maadaama hadhow ku dubayo waxaan rabaa un hadhow inuu isagiyo butter le aan ku dubto iyo inaad weel kale hadhow haddana iska uskagaysid marka hadduu tinkaaga yahay mid dabka la saari karo isagun baad ku dhalaalin kartaa butterku markuu ku yar qaboobo waxaad ku darsanaysaa sonkortii brown sugarka waad ku qooshaysaa xoog lama sii qoqoshay just wax la rabaa in la isdhex geliyo markaan saas ku dhex gelino xabada beedan ku darayaa xabada beedan markaan ku darana waxa qalalan ma ku darsanayaa iyo chocolate chipki حبة بيضاً كنت رسنايا تون كوي القوشية وحبس حوق وما باهنين لاسي قوش كوكيكا شس وين تسدح جلسيدون بدو باهن هاي هذا وحن كنت رسنايا وحق قلال نوردن دقيق دي بيكنج بودر كي بيكنج سودا دي يوم ملح دي chocolate chip kana half baan ku darsanayaa halfka kala hadhow dushan kaga daray markaa halfkaasan ku sii qooshiya de waa easy sidaas yar bad u qooshisaa markiiba wax sii oolay maaha waqti badan ka qaadanaya maaha marka taa qooshtida saas ku wada dhex gelisid tinkiisii bad ku shubanaysaa aad ku dubaysay vanilladiina waan ku daray mulqaacad yar vanilla ba ku jirta ku daraysaa marka taa isku wada qooshtid tinkaagi ayaad ku ridaysaa tinkana uma baahna butter because already butterkan ku soo dhalaalinay marka isagu ma toos ugu shubeyna okay
markaad saa iskugu wada gesid inaad isku keentid uma baahan tahay qoosh nin badan uma baahnaa cookiga waxaas buu ku fiican yahay cookiga in xoog loo qoshqoshiyo waxaas uma baahnaa xoogna uma sii simaysid kas cookiga waad aragtay dee u yara kala dhaadheer yahay ilaan cookie inuu u ekaado rabnaa se waxaan sameynaynaa inaad wada gaadhsiisid bilaadhka o dhan saa markaad wada gaadhsiisid chocolate-ka intii ku harsanaa waad ku darsanaysaa adduunka dhan wada chocolate baynu ka dhigayna maanta yaa si hadha markuu soo baxo isagoo meel walba chocolate ku leh uu inoogu soo baxo markaad saa u samaysid chocolate-kii dusha kaga darsatid halka waxay taalaa milixda buurbuuran waa sii sababta baa ii taalaa halkaas markaas in yar baan dusha kaga darayaa hadha markaad cunaysid chocolate yar iyo milix yar iyo marka waa hadda milixda aad haysatid uun waad ku darsaa wax badan uma baahnid just in yar chocolate-kii dushan kaga daray milixdii dushan kaga daray sii sababkii imika ofinkan gelinaya ofinku ii kulul yahay 180 baad geynaysaa ofinka waad sii kululeysanaysaa intaanad gelin wuxuu kugu jirayaa 10 minute oo qura wax badan uma baahna inaad dubtid 10 minute markuu ku jiro 10 ilaa 12 mirar uu kugu jirayaa هذا هو ديار آيس كريم كاغاد كدول درسانسا ما شاء الله cookie dawa kaas waa inoo diyaar ma sha Allah on ka soo saaray ovenkii wuxuu igu jiray 10 mirar hadaad rabtid 12 mirar baad ku deyn kartaa markaad aragtid in xagaas ay noqotay brown waa diyaar waxaan ku darsanayaa maadaama cookie yahay maanta cookie dawa ice cream ku daraya ba ice cream ka jacayshad ku darsan kartaa but I love this one yeah مقعد آيس كريم أنا كنت أربعة كده عادي مرخى آيس كريم كتلاقيه وان كسيرة صار برف قد السيو يجو يرتشلعه ونصير يس يوقعني كرام مرخى وكاس we're ready yeah ما شاء الله it looks so nice and it's that easy to make ده ما شاء الله وكاس شوكولات كيسة صولح جوجا شوكولات كاغي آيس كريم كاغا سكودر ما شاء الله والله it's the best يا انت انا عيد كلا كسو غاني ما كان ادو كو دمانيا wuxuu noqday buskud dhexda waxa weeyaan fudge buu noqday chocolate ba ku dhex jira ice cream kii the best dessert wallahi de ma sha Allah waxaan la arag oo la maqal cookie-ga uu yara kulul yahay isagoo yara kulul ba fiican inaad ku yara dartid ice cream-ka watch this The best cookie ever with ice cream on top. So nice. Look at it. It's really nice. You would love it.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمايدله كسو دوادا يوتيوب channel كيغا Bake with Asumi. channel dadku cusub tahay oo maanta tahay maalintii ugu horeysay soo booqatay. Fadlan subscribe haddaad tahay asxaabtidii hore ila joogtay. aad baad ugu mahadsan tahay waqtigaaga. Videoga ha ka iloobin like. inshallah maanta waxaan idinla wadaagayaa sida uu sameeyay donutkaas waa donut yar iska easy oo simple ah. marka inshallah kaas maanta idinla wadaagayaa. soo dhawaada. marka halkan alaabtii dhan baa ku soo diyaarsaday. waxaan sameynayaa marka ugu horeysa halkan waxa igu jira mulqacad iyo badh yiisa. halkan waxa igu jira 4 mulqacadood oo biyo diirana. biyo kuleel ma aha diiramaad waan isku darsanayaa. waxaan rabaa inay ii faxdo intaan alaabteeda kala diyaarsanayo inay ii faxdan rabaa. aad isku yara walaaqasa. halkan waxa yaala 180 ml oo ah caano. hadaan haysan waxaad ku qiyaastid adigu waa koob in yar ka dhiman tahay. koobka marka 4 meelood loo qaybiyo 3 meelood. halkan waxa igu jirta mulqacad iyo badh batara. marka batarka halkan aan ku darsanaya si uu igu dhalaalo. caanuhu waa kuleyl. waxa rabaa batarku inuu halkan igu dhalaalo. taas waan caanaha soo kuleystay. marka waad ku walaaqaysaa ilaa uu batarku dhalaalayo. batarkii isku kay dhalaalayaan caanuhu. halkan waxa igu jira 2 koob iyo badh daqiiq. waa daqiiq plain flour. malqacad yar oo milix ay taala halkan waan ku darsanayaa. halkan waxa igu jirta 30 gram oo ah sonkor. adigu waa 2 mulqacadood. 2 mulqacadood ilaa 3 mulqacadood weeyaan. haddana haysan miisaan inshallah videoga hoostan ku soo qori doonaa. halkaas aad ka eegi doontaan. waxaan sameynayaa wax qalalan baan isku sii walaaqanayaa. xawaashka ma lagu daraa donutka marka la sameynayo nutmeg weeyaan. waxaad kaga darsanaysaa in yar adigu meelaha mulqacada yar haafkeeda. wax badan ma baahnid. wuxuu sameeyaa dhadhan yar. haddaad helaysid weeyaan. haddii kale qasab maaha. waxaan sameynayaa 2 midho beedan ku darayaa. 2 midho beedan ku darsanayaa. halkan waxay taala mulqacad yar oo vanilla ah. vanilladana waan ku darsanayaa. yeast way soo faxday. yeastina waan ku darsanayaa. haddaad haysatid yeast aan u baahnayn in la activate gareeyo iyada toos baad ugu darsan kartaa. haddii kalena saasaad samaynaysaa. halkan waxa igu jira caanihii iyo batarkii way isku dhalaaleen. waan ku darsanayaa. tan waan isku qooshayaa. marka hore mulqacadan ku qooshiya hadhowna gacantan ku xashiya. markay adkaatay isku wada timaado gacantaada waa inaad ku xashtid. laakiin inta hore qoyan tahay mulqacadaad ku xashi kartaa. marka waxaad samaynaysaa saas u wadaysaa. markaad si fiican u qooshtid waxa halkan yaala koob badhkiyo daqiiqa. koobka badhkiisa daqiiqa marba in yar baad ku darsaa. yani intaad u baahan tahay inaad ka aragtid inay isku timid. donutka daqiiqdiisa waa inay jilicsanaato. sabaayadoo kale looma adkeeyo. marka marba in yar baad ku darsaa. iyadoo jilicsan baa daqiiqda donutka la dhigaa. because inuu hadhow jilicsanaadaad u baahan tahay samaha. haafkii daqiiqda waan ku darsaday. hadda waxaan sameynayaa counterka inta daqiiq ku shubto baan si fiican iskugu xashiyaa. in yar daqiiqad ku shubanaysaa counterka si aan kaaga dhigin. saasay u jilicsanaanaysaa. marka in yar daqiiqad counterka ku shubanaysaa kolba waad soo yar xashaysaa. adigu ilaa 5 minutes inta si fiican iskaga imanayso. marka waad dhigaysaa 40 mirir baad dhigaysaa. 40 mirir markay taalo ayaad la waxaysaa. and then waxaad samaynaysaa
marka waad soo isku xashisa kulba dhinac baad ka keenaysaa ilaa ay inta gacantaada ka hadhayso daqiiqda kulba dhinacaas waa inaad ka gaadhsiisid si aan gacantaada ugu dhegdhegin oo si fiican kugu xashinto at the same time daqiiqda kuma badinaysid because inay adkaato maaha wax la rabaa inay cajiin jilicsan ku noqoto waxaan sameeyay jabcad baan soo qaatay qacad saliid ku shubeysaa jabcada hareeraadka wada marinaysaa dan daqiiqdii waad ku dhex ridanaysaa waad aragtaan wali way jilicsan tahay maaha inay adkaato iyadoo saas u jilicsan ayaad ku dhex ridanaysaa boolka saliidda marisay marka saliidda waxaan u marinaa dee hadhow markay soo faxdo si aanay uga dhegdhegin hareeraha maadaama xoog u jilicsan tahay marka saliidda hareeraha nood ka yara marinaysaa dan afka bacbad kaga xidhaysaa amba tii taawal bad dusha ka saaraysaa waxay ku oolaysaa 40 mirar 40 mirar ka bacdi baan xashaynaa waxay taalay adigu meelaha 40 mirar ilaa saacad way soo faxday waxaan sameynaa hadda waan la waxaya haddana mar kale ayaan fiixinaynaa baashana waxaan ku sameynaa hadda waan ku googoynayaa soo marka hore waxaan baahanaynaa daqiiq meesha ku shubto si aan kaaga dhagin daqiiq baad ku shubanaysaa dan waxaan sameynaynaa dawayn la waxaynaa markaas aad ninkaaga dhigin marba waxaad sameynaysaa in yar baad la waxaysaa dan kor baad u yara qaadaysaa haddana waad la waxaysaa kor baad u yara qaadaysaa si aanay meesha kaaga dhigin oo dee hadhow kasoo goyi marka xoogna khafiif ugama dhigaysid intaasaad ku daynaysaa dee doonadka waad aragtay wuu waawan yahay halkan waxaan ku haystaa baasha doonadka lagu jaro soo daqiiq baan ku dhex ritay si aanu igaga dhagin daqiiqda si fiican baad u gaadhsiisanaysaa dan waan ku jarjaraynaa waana si fiican kugu go'do haddii kale hadhow bay kaaga dhagaysaa markaas markaad wada googoysid inta kuu soo hadhaa mar quraad tumad la waxaysaa dad si la waxdid hadhow doonad fiican kuma noqonayo mar quraad la waxaysaa tan saasad hareeraha ugu bushkareynaysaa tan haddii kale koob baad ku jari kartaa dhexdana dee shay yar wax yaro ahoo intaas leeg guriga alaabaha guriga marmar la isticmaala maaha qasab inaad wax kasta haysatid wixii loogu talagalay kolba waxaan sameynaa daqiiq baan soo marsanaya si aanu igaga dhagin intaa markaan ka guro mar quraatan isku celinaya dan waxaan sameynayaa dib baan waxa la waxa diyaarsaday tinkan warqad baan ku dhex ritay warqadan waxay iga caawinaysaa inaanu igaga dhagin daqiiq yar aan ku shubtay marka halkaas aan ku guranayaa inta hadhow ii soo faxay because waxaan u baahanahay inuu haddana saacad kale ii yaalo marka haddii kale aanan warqada u dhigin dee bladeku kaaga dhagaya marka waxaad u baahantahay inaad blade hayr iska sii diyaarsatid kuwa yarar haddaad rabtid waad la waxi kartaa haddii kale waad iska shili kartaa hadhow doonad yaryar bay ku noqonaysaa ciyaalka yaryar baa jecel markaas iska dub haddaad doontidna qaybtii kale dib u xashisi baad ku darsan kartaa waana inaad yaro kala fogfogaysid haddii kale way iskaga kaa dhagaysa hadhow markay soo faxdo marka intan waxaan sameynayaa mar baan isku yara celinayaa deetna waan la waxayaa sidii kale baan u jarjarayaa isku si uma la waxmayso durtaba way adkaatay marka la isku celiyo mar daqiiqad way adkaanaysaa taas waa inta uu soo hadhay aan u baahnayn inaad isku sii calcaliso hadda rabto googoyn kartaa saas ku shiili kartaa laakiin tii in badan ha ku celcelinin waxaan sameynayaa sidii un baan u jarjarayaa
inta midh ku noqoto bas inta kale waxaad samaynaysaa waad daboolaysaa waad iska dhigaysaa wixii ku oolaysaa adigu meelahaas 40 mir ilaa saacad ka bacdi waad shiilaysaa dushana waad ka dikoorad garaynayna insha Allah chocolate iyo xasan ku darna biscuit spread and insha Allah waan isku soo noqonaynaa noqday hadda waxaan samaynaynaa waxaan halkan waan dhalaaliyay biscuit spread markaas waan dhex gelinayaa de adigu waxaad rabtid baad ku darsan kartaa ku dikoorad garanayaa milk chocolate kaas waa milk chocolate aan dhalaaliyay haddaad microwave haysatidna microwave waad ku dhalaalin kartaa haddii kale disti baad dabka saaraysaa biyaad ku shubaysaa biyuhu markay yar kulaadaan baad jabcadda chocolate kugu jiray dul saaranaysaa sidaas ba chocolate-kana loo dhalaaliyaa qaarna chocolate baynu ku samaynaynaa qaarna waxaynu ku samaynaynaa biscuit spread-kaas dawakaas doonadkii waan sameeyey halkana chocolate-ka aan dhalaaliyay baan in yar ku shubtay waxaan samaynayaa dushan kaga decorate garaynayaa just lid buu samaynaysaa biscuit spread-kana intii soo hadhay baan ku shubtay